munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa maamulka jaamacadda New Generation ee Burco uu ku maamusay ardaydii ugu horeysay ee jaamacaddaasi waxbarashada ka bilowday markii gobolka Togdheer laga furay jaamacadda oo ahayd 2017 munaasabadani waxa ka soo qayb galay barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Bidhi oo ka tirsan golaha deegaanka Burco maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda New Generation gudoomiyaha jaamacadda New Generation Maxamuud Said iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi Cabdi Fataax Aar oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in intii jaamacaddani ka furnayd gobolka Togdheer ay wax weyn ka bedeshay heerka waxbarasho ee gobolka Togdheer waxaan aad ugu mahadnaqayaa New Generation oo la asaasay qaybteeda Burco 2017 bishii 12aad wadkan caawa uu dabaaldegno oo lodkii ugu horeeyay aaminaada ay aamineen inay ku soo biiraan jaamacadda jiilka cusub waxaan ballan qaadaynaa inaad New Generation insha Allah aad kala tagi doontaan aqoon ka duwan dhammaan jaamacadka ku yaala Soomaaliland oo ay ku dheerahan tahay tayo jaamacadda New Generation inay diyaar u tahay tayadiina iyo inay soo saarto daayir qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan ka bedeli kara xalfadu waxay daarantay inaan ugu mahadnaqno isla markaana ugu hambalyeeyno dhammaan ardayda sanadka labaad ka gudbisay sanadka saddexaad ee jaamacadda sida wanaagsan ee kartida ku dheehan tahay ee quruxda badan ay u soo wadeen jaamacadda labadaas sano ee u buuxsamay maanta qaar ka mid ah ardayda jaamacadda New Generation oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda guud ahaan sida kartida iyo hufnaanta leh ay u shaqeynayeen muddadii aan wada joognay waxaa muuqata in jaamacaddu dhigeeda waxyaabo badan ay dheer tahay isla markaana tay ahaan iyo xagga hoggaanka iyo hagista inta inuu yahay mid la mahadin karo guud ahaan bahda New Generation aynu noqono jiil isku duubnaada horumarka dalkooda ka shaqeeya ka gobol ahaan ka shaqeeya nafahooda horumariya wixii xun ka dheeraada jaamacadda New Generation in ay tahay jaamacad ardayda ay soo saarayso ay yihiin arday tayo leh waxyaabaha kale anagu ku sii xulanay aanu maleynayeen idinkuna ku xulateen waxa kamid ah jaamacadda New Generation rulkeedu xagga sharcigeedu waa mid aad u adag waxaan jeclahay inaan ugu horeyn u mahadnaqo maamulka jaamacadda New Generation oo nasiibkan wanaagsan noo siiyay inaanu halkan nimaadno xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo ayaa iyaguna ardaydani kula dardaarmay inay cilmiga barteen ay bulshada ku toosiyaan jaamacaduhu waxa weeyaan way kala fiican marka New Generation runtii waxaan qirayaa oo marxatiga furaya inay tahay runtii jaamacad ku faani kartaan oo meel dheer la gaari kartaan shahaado oo jaamacadaha ka dhisan gobolka iyo dalka runtii inay kamid tahay New Generation jaamacadaha ugu sareeya runtii hormuudka labaad mar saddexaad ba aad iyo aad baan ku hambalyeynaya waxaan raggii runtii ka qayb qaatay in laga furo ama lagu daro qismu shariica falkadka shariicada ee Burco New Generation idinkana waxaan rajeynayaa dhalinyaradiina inaad wax badan gobolka ka bedeshaan jaamacaduhu way tartamayaan goboladu way tartamayaan oo qof walba uu han yeesho aqoontiisa iyo fikirkiisa iyo maxay uu ku meel maro ugu dambeyntii maamulka jaamacadda New Generation wuxuu abaalmarino kala duwan gudoonsiiyay ardaydii munaasabadda loo qabtay shaqaalaha jaamacadda New Generation iyo telefishinka bulsho oo uu sheegay inuu door muhiim ah ka qaato wax ka qabashada arrimaha bulshada Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsho TV Burco